saldhiga dhexdiisa xabsiga waay waxa dhacay mudul gudoomiye rasaas waa lagu ridoy marka waxaan xabsiga ka soo baxay gacan ku dhiglayaal ku jiro dad dilinay ku jiro qaara soo laabtay marka waa kuwana rasaasta markay maqleen qaara soo laabtay qaara marka hadda la isku duubay oo la qabtay sida inay ayaga leeyihiin amal ay u qaateen iska mobilka canshuur ma qaado macnaha ninkani mootada sida uga booday samada ka soo booday waa kana qoriyo wata dhakab fiir maamadi mudul gudoomiye ninkan mobil muusa dhiibin wallahi inaan ku siinin oo billahi inaan ku siinin uu yiri degdeg iisadbal oo abooyariisow daaha gadaashiisa uu ka hagayay ayaa la soo shartagay kaarto daf iyo miriqa oo indhaha liiska gelinayay AK47 liifkana waxaa u saarnaa taleefanada nuuca laabsalaaxa oo keliya asxaabul niicle ayaana ka badbaaday xarfaantan oo dhac socday 48 saacadood gacanta ku mariyey 16 degmo askari booliisa xitaa way dhaceen arday ma fakan wax ay xeeriyeenna ma jirin laakiin buule Israafiil ayaa indhaha loogu shitay oo shaxdooda handadaada ay ka socon weysay ugu dambeyn waa la qabtay saldhiga degmada hodan ayaana lagu xiray balse ka darantii hore waxay jabiyeen albaabkii xabsiga oo ay ku xirnaayeen maxaabiis dambiyo culus loo haystay waxaana mar labaad iyo maalmo kadib lagu soo qabtay baadigoob kale iyagoo aan ka qasnayn oo magaalka ay u shidan tahay dable xoogga liibaan Mustafa Aadan Sadbal oo qori AK47 isticmaalayay iyo dable xoogga Subeer Xaaji Maxamed Degdeg oo isna mootafeekoon dhegtahay ayaa maanta halkan u taagan in laga xisaabiyo burcadnimo hubaysan iyo qalqalgelin amni dable xoogga Xasan Yacquub Cabdi Abooyariisow ayaana shirka kula ahaa faldambiyeedkan kaasi oo lahaa qoriga dhaca lagu geystay heshiisna kula galay in kala bar uu qaadanayo taleefanada la soo dhaco maadaama uu lahaa maskaxda iyo hubka lagu howlgalayo eedeysanayaashan oo suurad xumeeyey amniga caasimadda iyo sharafta ciidanka ayaa maalin qura isku maray 16 degmo oo Muqdisho ah marka laga soo tago falalka dhaca ah waxa uu dheer inay qalqal geliyeen nabadgelyada guud iyo tan shacabka taas oo mashquul ka dhigtay gacmada ay ku wada xiriiraan ciidamada iyo nambarka gaaban ee 991 waxaana eedeysanayaashan dhibanayaal u ah dad ku dhow 20 qof oo loogu awood sheegtay hubkii qaranka ee ahayd in lagu difaaco kaamirooyinka hay'adaha ammaanka ee CCTV oo duubtay muuqaalo laga arkayo eedeysanayaasha oo geysanaya faldambiyeedka dhaca ah ayaa dabagal kadib waxaa suurto gashay in la qabto Sadbal iyo Degdeg saldhiga degmada hodan ayaana lagu xiray balse way ka baxsadeen kadib markii si xirfadeysan ay u jabiyeen albaabkii xabsiga oo ay ku xirnaayeen maxaabiis qaarkood dilal loo haystay dadaal iyo taxaddar dheeraad ah oo ay sameeyeen ciidamada saldhigaas ka howlgalayay ayayna ku timid inay ka hortagaan maxaabiistii kale oo isku dayay iyaguna inay baxsadaan Sadbal iyo Degdeg ayaana mar labaad lagu soo qabtay baadigoob kale 19 bishii koowaad ee sanadkan eedaas ma gashay mise ma gelin dooda ka qabtaa waa galay laakiin dooda ka qabaa doodaad maxay tahay dooda ka qabaa waxay tahay lacag deena lagu lahaa yani deena lagu lahay lacagta deenta lagu lahay falkeeda ninkan saaxiibkayga oo qoriga lahay ay maaday waxa ay dhaanay qoriga noo qaad magaaladaas ma aadi kariya dhahay laakiin lacag ma deegamin aliga rabaa lacagmanka deemanka awgeed lagu lahay oo waxa uu bedelay inaan qoriga ii dhiibo oo sidii magaalada ku aado lacagtii taleefamada aan keenay asaga qaatay bar oo soo gaday lacagtii laga rabay $100 $96 lacag oo diray $96 deeman awgeed iskaga dhiibay lagu lahay sidii falku ku dhacay kiiska waxaana degmada soo marteen mootada mareysay ma macna waxaasoo degmada ma marin mudan garsoore tag soo baxeen inta tagteen Saybiyaane qaybta xagga jirta wada jira mise qaybta hodan Saybiyaane qaybta hore beerta qaad dharkeen le soo marnay ilaa xamar jajab bis yaqshid ma tagin ma yaqshid ma tagin agaaraas dhan ma gaarin mudan garsoore qofka qoriga la keeway xasan waa adi qoriga ku qoreed qoriga ku qornaa dawladda haysato goorma shaqo qabad kugu dambeysay 2025 kadib laga joojiyay lacagta bis 9aad laga joojiyay maxaa ugu naqoy shaqadaad maxaa u diiday hooyaday ayaga xanuunsaneed mudan garsoore mid ila xanuunsanay qof kale hooyaday gacan si ani ahayn ma jiro diintiya kugu lahay deenta maxay deenta deen oo guri kiridiisa ibiyo laga rabay saaxiibkaas ku tag hal mar ma ka soo tagteen shaqada maya asaaga hore ani 2025 bis 9aad laga soo tagay laba qof ku socodtiin ma soo ku qaatay mobilada ada qaaday ma ada qoray wad asana mootada wada kan kalena Suweer mootada wada qorigan ana wada ninkan guriga iska joogay qoriga le malaata marka qaada u celisay marka waa u geey dadka aan liistigan aan tirinayn dhan wax ma laga qaaday maya meeq qof oo tirahan ka qaadeen 7 qof ka qaadnay yaa iskala mootada ninkan wada laakiin qofka iska le ma aqaan
Zubeera wade. Zubeer u dhiib Zubeer haye see wax u jiraan kooxdan dhaba wax ka qaateen alle Ani mootada inta darawal ka hay ma fahantin. adiga Koorsa Sebian ku soo deji. Sebian anoo soo marayo Banaadir. Anigan saaxiibkii la ataynay. Wuxuu dhahay ii shaqeyso dhaaway qaadi intuu geenay wuxuu dhahay loo meel oo tilmaamay. Alaaba soo qaadanay soo in booski ay keenay. Hayaa dhahay waa baxnay waxay geeyay xamruuna ka sii qaaday Bondeer geey. Bondeer markaa ka sii geey ninkan Bondeer oo fal usoo binay arki. falkaanu aqday si socorow qori oo qabtay waa kiistay nafsadii oo cabsaday kawda hore wada jir iyo dharkeen le iyo ilaa xamar jabal soo maray xamarweyne macna inaad dhankaas dhan soo martamo Serbia waxaas dhan wax ma soo suubinin laakiin marka xamar Bondeer soo marnay xamarweyne hoodan markaas marnay hal mar wax ma qaadin ma ka badan oo qaaday wallahi ma sheegi kari laakiin marka oo kaamiradaas aan oo qori xataa wal arkaa soo taagay kaamirada la arkaa adi shaqadaada awd shaqadii yani waxay ugu dambeysay 2025 bisha 12 bilaa ka maqlay waa biska dhaafay moota biska kiraab ka qabsaday Eritrea adna ahayd ma mootada yaa iska leh mootada kiraab ku wadi yaa iska leh naaya iska leh qof dumar iska leh awd hadda mootada saligooda leh taala marka maadaama oo ninkan ila shaqeyso ku dhaay meeqa mobile ka qaad ani mobile ma siini lacagti meeqa qaad ani lacag ninkan wuxuu isii konton isii habeenkii lagu sii hamay marka wuxuu isoo tuuri adi saaqo saac amal falkan soo ahdi oo ah xasan mustaqanin maalinka qoriyo ku soo qaadanay bis ay waa ninkan marka qor la'aan ku raacmiya xasan ak soo qaadan miya asigina ma ciidankii xaq soo tabartay miya sodonaadii saalaadnaada kalena tabarka xaq yimid waa Eritrea xasan u dhiib xasan haye qorigaaga maxay u dhiibtay ragan waxaan qor u dhiib ma jirto xilliga falka dhacay ani saraakiil xigeenna leh hal weey xiradeedan joog habeenkii xilliga la soo wacay roondan jirib ano meesha joog 5 ilaa 5 telefoonka ku dhigeysanaa ilaa shaqada aan aaga soo laabtay markaan shaqada ka soo laabtaan qabtay kii damiinta soo wacay war liibana saan qorima u dhibtay uma dhiibinaan dhaay liibana ani si maalinka iskugu dhacnay mees arkin gurigana waa ka guuri xooleen ilaa ima siin asaab anoo idhacay dukaan sandaqada islaanayna inoo idhay lacagtii marka aan shoog aan shaqan leeyahay ciyaal dib ku jiro aan ilaalina jaanis dhameen habeenkii roonda maalintii roondan laha nin inda sandaqadii qaatay asna beledweyne feer celina loo celi 12 bisha qorigan in la qaado feer celin loo celi shaqadiis dukaan sandaqadiin hore u gatay 865 dooran ka rabay waa isqabsanay ganacsiga shirka ku aheedan miya maxaa la ganacsiga markaas dukaan ay sandaqada wada dhisan ani mooto ina gataar maxaa loo gadaa daqandaqad sandaqad sigaar iyo nina ay biskud iyo waxaas cuniga aan u dhiibna cunigii asoo 12 birijo cunigii cala waqti walba soo wacay liibano ay saas mi aha adile qof noogu dhiiban dhay markaan intii igara wixii warartay waa isqabsanay cadeemo wax dhan waa u haya ay marqaatiyaal tan qoriga oo sheegayna saraakiisha laga wareysay xilliga falkaas dhacay ana xamar maba joogin goobtii shaqadan ku sugnaa qorigan inta keenay qoriga ma liidi ma ninkaas ma qori la hadda daraad markuu xabsi oo ka baxsaday qof wala joogo asoo qori haysta ano ii soo dhaaf guriga hooyaday u tagay asoo qori wato guriga asi hadda ninkii gurigii laga soo qabanay markii la soo qabanay wiilkii joogo askari qorigiis waa wata ano ii soo dhaartay hadda saana kugu sameeyay waa ka shalay doontaa way dhahay adi qorigaaga yani xirada restoorka dawladda wax soo qabteen ma jirto talaska lugta aad la talaska lugta aad waa leeyahay xir waa soo wareeji hoodana la keenay hadana tan maanta inta aad taaganayo qoriga inta tali urur iyo damiinta isla joogana wareeji hatta hal qof uma dhiibin adiga liibaan kaliya ma dhuuyi qoriga waa laga soo qaaday ninka kale saaxiibka Zubayr xitaa qoriga waa laga soo qaaday dhuuya ilaahay ii jeedo meel cadaaladna waa jooga ninkan wallahi billahi talaa ma aqaan ila tari hatta asleeyahay ii ciidanka ila tariya wiiligay ma arkin ninkan in laga soo qaaday asna uu sheegay ka kaliya xilligaas hadda soo qaaday qorigay aan jini ma ah xiradan joogay hal weydii saraakiisha ani xukumaysa ani taliyo koox iyo taliyo horanku waa isla qayleeyay maalinkii adiga hadda markii lagu xiray active ahayd ma qof shaqeeyay ahayd ma shaqeynay adiga qori mu dhiibin dadka ma u dhiibin qori iyo fariis garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa garmaqalkan ku dhageystay dhibanayaashii laga dhacay taleefanada kuwaas oo ka waramay qaabkii loo dardaray iyo sida ay ula dhaqmeen eedeysanayaasha intee wax lagaaga qaatay yaana ka qaatay seen lagaaga qaatay waxaa laga qaatay degmada hodan gaar ahaan xaafadeeda marka ka soo baxay agteeda xaafadda inta ku taala bangaariyada marka soo dhaw ka soo baxay waa laba telefoon isku hayay midna walaashay midna ana lahaa anikay PDF exam ka akhrisanay hay gabadha walaashay waxay raad in shareera xirnaa telefonkii qabo way soo kor saartay then anoona filineen war ii sheegayse bajaaj gadaashan ka soo baxday ma filineen marka way nagu soo baakintay bis ninkan adii markuu soo dagay qoriga soo cabeysanayo soo dagay telefoonada keenoo dhahe
mis taleefanada haye wuu ii qaatay bajaaj ma watiin macnaha feekon adigii gabadhii kala malan ka qaatay mobilada haa laba taleefan aniga gacanta saana u haye keeyga saana exam waa akhrinayay keedana way soo dul saartay saana u haye noocee laga qaatay adiga samson S12 yaa kaa qaatay ninkaas ii qaaday ardayata haa maxaa dhigataa jaamacada hadda dhameeyey kuliyadee baratay shareeca alqaanuun nasr iska fariis aamina haye maxaa kaa maqan see wax u jiraan mobilaaga maqan see lagaaga qaatay maxaa qabanaysa adiga anaga imtixaan u soconay jaamacada u soconay aniga shareera xiranaaye gabadha igu horeysa mobilku dhiibay ayadana imtixaan ka akhrisanaysay wiilasha saa qaatay kee kaa qaatay midka dhexe kan kalena mootada wade mobil kaa baqan magaciisa S05 iska fariis adiga maxaa kaa maqan seena wax kugu dhaceen mobil laga dhaca intee joogtay see lagaaga qaatay yaa kaa qaatay meesha jooga warta nabadda warta nabadda laga qaatay laba nin ay qaad oo mooto wato mooto noocee mooto oo feekon way yimaadeen mobil keenu dhaay waa dhiibaan isku dhijimay intee u socotay intaan ka socotay markaas ma ana waa socod dugsiga u socdo mobil keenu dhaay oo igin xiyo waa dhiibaan maxaa taa adiga arday oo noocee waa dugsi caadi oo macad mobilka laga qaatay noocee waa A16 Samsung yaa kaa qaatay mobilka kaas dhaxda ku jira iska fariis magacayga waa maxamed axmed waxaan deganahay degmada hodan gaar ahaan xaafadda albarkan deganahay maalin taariikhdu tahay 18 bisha koowaad 8 saac iyo 9 daqiiqo ayaanu guriga hor fadhiya bakaara ka imaaday oo guriga hor fadhiya albaabkuna ii furay xogaa soo daalan asla meesha iskaga leefso waxa mooto igu soo baakimay meel ka imaadan aan aqoonin labada nin oo kaas mootadu waday kan kale oo liibana asagana waa kan qoriga ugu qabtay kilida iga qabtay markuu ii soo dhawaadayna qoriga hoos u sii deestay kadib mobilka markuu ila dhigay cabaar buu ila hadlayay biinku ii weydiiyay markaas aan kulay waa gadaysaa $20 ka bixinaysaa $20 ku dariya ii daa mobilka markuu biinku weydiiyay kulay biinku ma siina mobilka waa haysataa ka mootolaha wuxuu ku dhaxdaa marba mobilka haysata naga keen meesha ayagoo ka baqaya in meesha loogu yimaado sababta markaas wadada cillay ahayd cidna ma mareenin markaas intee joogtay adiga xaafadeeda hor fadhiyaaba dabaqa apartmentiga hoosisaan fadhiyaa mobilka markaba ku daayeen markii waa ka qaatay iimu dayn wuu baqaataba markuu arkay inaan biinka u diiday anina aan ku yiri kulay waa wagada $20 ka bixinaysa iida buu biinka u weydiiyay biinka markaa u diiday baa ka mootadooda la hadlo wuxuu ku dhahay mobilka daayst ma keen mobilka noocee waa Redmi 14 Pro oo 5G Redmi ha China soo saara yaa wada mootada yaa wada mootada waxa waday ka geeska xiga kan dhinaca xiga ha tinta badan nimanka kale ninka kula qabsada kee waay ka mobilka iga qaada waa kan kale geeska xiga gaaban liiban حتى لوك بحوجة مودة إنه كتشيسية إنه حوجة على مودة لوكت مقعد ما يستاهل ما كسرنايا ما موبايل كي قاعد وسيس على وجهه هذه مركب حاجة وتام حتى هذه إن هذا مش شقي لكن وشقيني مركب هراء لو ما سنتها سكفريس هذه كم حاجة ما غي سيلا جا قاتو حاجة أنا وحا هي لبناء موبايل على قاتي موبايل كاس دوكيمنتي أيقول جري أو ليسن كفر كو يقول جري ليسن بتنت معنا مدة هذا وقت دير لقي جو دور بلادا صباح كم ده أنا صعدو وحافظي صوب بحيا waxay hor imaadeen la wiilo moodfay kan wad mobilkan xilgaas aan gacanta ku hayo wiilan wacay si oo dhaqsi oo yaani oo aad naxtin oo shooge wiil oo qorowti mootada gadaal ka saarnay oo faykonta gadaal ka saarnay oo mootada hal mar ka soo booday mootadan wali istaagin oo ka soo booday isla markii waxaan arkaa soo qoray madaxayga hayo waxaan dhahay maxaa u baahan tahay marka mobilkan baahanayo mobilkiisi mobilkan u taagay hoosto iga jiri marka way iga cabsay laba tilaabo gadaal u sikay wuxuu saraamo qori kul dhiga kadib gudoomiye waxa dhacday mobilka soo tuuray tuuro dha laba tilaabo gadaal u sigtay qoriga ku dhigay madaxu iga gaadi aniga asaga inta ka dhaxlan ku tuuray fay content way taagantaa markaas kadib waa qabsay mobilka jeebka u gashtay wuxuu aaday dhinaca xaafadeedu aaday ana warta nabada deganahay dhinaca xaafadeedu markuu aaday waa daba kacay marka isla markaan daba kacay wax 50 mitir camal ii jiro wiil yaro arday hadda wax yar koor inta soo istaagaysan jeclahay oo yaani xaafada degan iyo wiilal kale oo meel fadhiyo oo hadan ku leexay anoo asiga daba socdo isla markii yarkab oo faykonta watay mar walba waa in aad u gacan fudud darawal ahay markuu uu kala wareejiyaa mar walba mootada intii dadka la dhacay kiya kala wareejiyay isla markii dadkii aniga aan raacdeynay daba socday hadan aniga soo horjeestay mobilkii wadana ka soo qaaday wiil kalena ma aqaan waa ka carraa malaha guriga ka galay isla markii meesha ay ugu soo noqdeen marka aniga saan ay ugu soo noqdeen wiil yar oo albaab u furan yahay wariyaha kale uu ku dilnay ka soo gal gurigan ka galaa marka meesha soo marayaan dan saas ay ugu dhaafeen guriga ay dhawaa xaafadan tagay nambarka gaawan ee booliiska waay oo 9 halka oo gargaarka degdeg way jawaabeen isla markii ciidamada booliiska la soo diray xaafada ay imaadeen waxyaabay baabaareen kaamirooyinka wixii arkeen
kabacdi waana wadeen waxayna geeyeen saldhigga oo warta nabadana la geeyey warta nabadina la geeyey warbixinta nagala qoray baariye kiiska wixii aan nala qoray waa baxnay maanta ku xigto waa nala soo wacay saldhiggaa tagnay nimanka waa la haayaa la saldhiggu markaas waa nagala wareejiyey waxaa nala wareejiyey saldhigga hodan taliyii waa naga qoriyey wixii ribood ee warbixin ah saasaa maxkamadda ku nimid marka taleefanadaadii qofka kaa qaata ma aqoonsan kartaa hadaa fiiriso waa aqoonsan kara haa inta fiirib wiilkaas geeska jiro faykontoo darawal ka ahaay kaasna ninka qorayga madaxa iga qabto waay moobeelka lagaa qaato magaciisa A05S waay Samsung waay batantaha maxaa ku qabaysa aniga waa nin dhalinyaro arday oo mutacallim mooto ku shaqaysta mooto bajaaja wada shaqa u socdo marka subaxaas marka leesinka bajaajta waay haa waa lugeynaya markaas aniga mootada u socdo garaashka u sii socdo subaxnimo ahayd marka kofarku igu jiray laysanka dib muu samaysatay haa waa samaystay wasaaradda tagay taliyahan waxaan ka codsaday waxaa ka iloobay oo saldhigga hodan waxaan dhahay aniga ma shaqaysan kara taraafika ay u dhigayso marka waraaq oo ii qor oo aniga in oo lay dhacay oo laysanka iga maqan yahay waayuu dhahay waraaqa xafiiskiisaas leega qoray saasaa kusoo cusboonaysiista marka maadaama aniga aan baagmuugday karin maxaa barata markaaga hore aniga health science aa barta departmentkayga waxaa waaye laboratory science aa jaamacadee ka baxay jaamacad daarusalaam ka baxay meequu joogaa laysanka cusboonaysiinta iyo way kala duwan tahay iyo qofka markuu qaadana cusboonaysiinta waxaa laga qaaday $40 laga qaaday wasaaradda gaadiidka waa maasanta iska fariis adaan badan gudoomiye leila see wax u dhaceen maxaana kaa maqan موبايل iga maqan haye subaxdii soo baxay shaqo u socdo bacdin wiilashana jidka iga hor imaadeen inay wadada moodayna umaleynay geesa ugu leexday marka ka leexday bacdin ninkan kale intee mootada wada qaaji kan kale ka soo degtay askariga markuu ka soo degtay moobaylka gacanta ku hay moobaylkan oo dhahay moobaylkiisa wuu iga dhaqaaqay meeshii taagnaay maama ay imaadeen maamadii meesha ka xisam waxay igeesay maxaa la dhahay wiilash dhacdo oo xagga fadhiyaan wiilasha oo tagnay wiilash waa daba kacay way soo waayeen intee degantahay intee u socotaa intee ka socotaa shibisa deganaha shaqo u socday ko isma dhihiin ani moobil iyo waxa uu u baahan yahay bas just maxay soo sawirmata inuu idil rabo markuu moobilka indhahan farta leeba ka saaray waa isku furatay moobilka laga qaatay noociisa A26 waay A26 xaliya waada u mahadsantahay leila iska fariis intee degantahay say wax kugu dhaceen maxaa lagaa qaatay yaa kaa qaatay degmada boondheeraa deganaa nimankaa mootay wateen midna qoryo watay qoryo iyo cabeystay moobeelku ay xoog iga qaaday marka aniga waa istaagay qoryo igu soo aaday kadib waa iska fadhiistay mootadooda hore u sii baxeen adi maxaa qabataa booliisa darees iyo wax moodan miya ma xaafadda joogo marka intee socotaa intee ka socotaa banaanka xaafadda iska fadhiyay gurigaaga hortiisa banaankeeda fadhi moobeelaa ku isticmaalay ka mootada wadi iyo kan kaa qaaday kee waa mashii kartaa fiiri inta au dhawaa kartaa daarad midkaan waa gees mise dhex geeska muxuu sameeyey taleefankaasaa iga qaaday qoryo igu qabtay oo igu cabeystay yaa mooto wada markii mootada ninkaanaa wey inta ku jiraa dhexda moobeelka laga qaatay noociis marka Samsung A23 ii fariis waa maasanta see wax u dhaceen intee degantahay intee wax lagaa qaatay see wax u jiraan yaa kaa qaatay gudoomiye waxaa deganahay degmada Wadajir khaasatan Buulxubey marka ninkan subax alisay 12 saac iyo bar aan soo kacay anuu gurigeyga ka soo daadegay oo gym u socda xaafadeedii inta gymka u dhaxayso igu helay asoo mooto wata ay laba yihiin gadaasheeday ka imaadeen hal mar waxaan ku baraarugay mooto zaa'id xawli u socoto oo dhinacayga taagan leh ee ninkaan ka soo boodayo qori igu qabtay telefonaan watay iPhone 16 Pro Max marka waxaan sameeyaa badanaa intaan sii socdo wadada waxa iska dhigaysaa broadcast anoo broadcast geesanaya oo dhigta gashtay oo meesha igu helay qorigu igu qabtay wuxuu dhahay telefonka keen xagga camaliga istaageen telefonkii aan cabaar isku adkeeyay hal daqiiqo camalan ka haysto ku dul fakiray waxaan isku dayay inaan raadiyo Janis aan uga baxsan karo markii dambe waxaan isir telefonkan saakiyaan wax lagu yeelin iska dib xagga camala ugu tuuray telefonkii wuu qaatay wuu iga dhaqaaqay wuu fiiriyay telefonka inuu xiran yahay arka furu dhahay waxaan ku dhahay ma aqaani baaswarka markaas wuu dhahay see u wadataa baaswarka marka wuu iga tagay mootadii fuulay wuu soo degay haddana furu dhahay qorigu mar labaad igu qabtay fur markaasaan dhahay ma aqaani markaasuu dhahay see u ka siinin haddaad wadatay telefonka sidii iga dhaqaaqeen markii aan waxaan sameeyey telefon kale ma wadanin lafahayga meeshii iga jireen waxaan isku dayay inaan guriga ku laabto qof kale telefon ka qaato 991 aan waco aan la soo xiriiro booliska u sheegay kiiskayga goobta kaameradii ka dhoweyd iyo wixii dhan inaan raaraadiyay aan isu xil saaro adi
markii duhurkii camal la maraayana aan tago degmada oo aan ka soo qorto kiiskayga so taleefankaasaa iga maqan dukumentiyo fara badana igaga jiro kama maarmi ilaa hadda taleefon kale ma siti oo maxkamadda waxaan ka sugayaa cadaalad inaan taleefankayga helo waa kaasaa gudoomiyey dhigihii ma qaateen dhigihii xataa may dhigaha maysa iga qaadan taleefankay iga qaateen bis dadka kaa qaata ma taqaanaa yes ha waa ka wey ninkaas mootada waday iyo ninkii la socday asi waa fiiri kartaa ninka nin waa kaasaa gees ka jiro ninka qoriga wata waaye ninkaana ninka mootada waday moobeelka laga qaata nuuciis muxuu ahay iPhone 16 Pro Max oo cusub markaas aan wax yar haystay asaga dhanba axmed aad u mahadsantahay iyo fariis oo mahadsantahay gudoomiye xaafadda buulo israafiil oo degmada hodan ka tirsan ayaa eedeysanayaashu waxay isku dayeen inay ku baartaan wiil dhallinyaro ah oo hor fadhiyey garaash lagu sameeyo gaadiidka wuu ka diiday markii ay cabsigelin uga qaadi waayeen taleefankiisa ayayna isaga tageen waana kan maxamed cali shiikh oo maalintaasi wixii uu la kulmay uga waramay garsoorka ciidamada qalabka sida adiga see wax u dhaceen nimankan waa yimaadeen feekoon ay wateen meeshaad joogta ka bilow dee degantaa horta waa hodanaa deganaa degmada hodanaa deganaa meel laa shilkan wuxuu ku dhacay buulo israafiil buulo israafiil haa waa afrika village qabiladeeda waaye nimankan waa yimaadeen waxay yimaadeen 12 saac ay ribay yimaadeen markii aan soo fadhiistay kursina waa ku fadhiyay kursina lugaha saartay ninkan feekoonta wato aa soo istaagay ninkan qoriga wato aa qoriga ugu qabtay waa iska caabiyey waxaan dhani hore tagsaaxayo indhaha isku shidanay ninkan feekoonta wuxuu dhahay ninkan garaashliyo waa naga soo wada adigana kaliibkan ku soo diray gudoomiye ku soo diray ya falka koom ku dhacay adaan ku soo diray gudoomiye ku soo diray maxaa ka wadaa whatsapp kan ku soo diray whatsapp kan ku soo diray marka shilka dhacay adaan ku soo diray gudoomiye kan public ah wax ku soo dirtay garaashla waa maxaa ka wadaa yarka oo feekoonta wato wuxuu dhahay ninkan garaashla waa naga keenay yarka mooto wato wuxuu dhahay ninkan garaashla waa naga keenay maxaa ka wadaa ma ka saas oo soo wadiiyay yarka feekoon la waay qori ma kugu qabanno adiga yarkii marka feekoonta soo istaagay ninkan qori ugu qabtay ninkii waa iska caabiyey adoo dhahayo wuxuu dhahay orayga tag in waa xoolo muqsiya wallahi waxaan muqsiya bilaa xoolo muqsiya orayga tag ninkaas qoriga wato waay ninkaas mooto wato wuxuu dhahay ninkan garaashla waa ninkan meesha waa garaash gudoomiye meesha agtiina garaash agteena meesha ku qaxweynaa subaxdii markaas mobile gacanta ku haystaa miya gacanta ku haystaa waa u istaagay qoriga ma ka baqin qoriga ma ka baqin ma ka cabsan أنا حولي واحد وعند أنا حولي أقول مكرر يعني. عشان مركز محكو ليه محكو شيء قوي محكو هذا. ما لها اللي نكان وصوت دقي قري وقط وحور بين أكل قلاء أو ما بالك أطر أو ما بالك أطر نكاس قري قط. هذيك نودي مركز. أنا نودي ذا قدامي. كيوا كان قري قط مركز. كاس واي. كم موتة وطنه. لا حد واي. ما سنت محمد. هاي قدامي ما سنت هاي. xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxdarkan ku soo bandhigay muuqaalo ay duubtay maragmadoontada CCTV camera oo laga arkayo sida faldambiyeedkan uu dhacay iyo cadeemo kale waxay moobeelo ka qaadanayaan labadan gabdhood oo ardayda ah moobeelada waa ka qaateen sida inay ayaga leeyihiin camal ay u qaateen mootadayna raacay mudan gudoomiye labadan gabdhood marka mudan gudoomiye qalqalgelin ma lagu sameeyay mise ma lagu sameyn gabar kale haddana waa tan meesha iska lugeynaysa xaafadda iska socotaa wax oo macnaha hadda oo cabsi ah kuma jirto xaafadana iska socotaa tan iska lugeynayso laakiin gadaasheedii soo socdo fataq waa kana qoriya la wataa iska mobilka canshuur muuqaad weey macnaha mobil asaga iska leey muuqaadan weey waa may xoolo islaameed oo dhacooya gabadhan hadda waa kana fiiri nafteedan ku badbaadsanay tir maxkamadda maanta hada kor cadeys mudan gudoomiye hadda isku dhijin lahayd muxuu sameyn lahaa madaxuu ka jibin lahaa dhibanii saddexaad haddana aadna mudan gudoomiye meeshaan yaa fadhiyo wiil ardaya iska fadhiyo mobilkiisa isticmaalayo gurigiisa hortiisa fadhiya apartmentiga horteeda fadhiya wiilani nimankan inta ka soo qarateen Garasbaaley iyo waxa laga yimid waa bari hal mar asoo habeen waay xilli habeen waay asoo iska isticmaalayo mobilkiisa waxba kala ogeyn hal mar jub loo ka soo warheelaya la bis كان موبايلك ولا قاتل موتدي الراعة ترتيب وحاربها مركب موقال كان عضو لي هي عدك إن دارو موتدي واتنا افتين كذا هبين متى مسماها هبين متى مسماها هبين وين شاكذا معنا سوحا بالله وانا سقال ساعة وقال بحنا وحكي جرى ماله هبين وين مدن قدومين الكذا موتدي واتس في ريمك واك كان موبايل كوريا
xogaa wiilka uus adkay waa kaasa oo sii cararaya gabdhahaasna waa kaasa oo lagu sii darsanaya wiilka uu ka qaatay gabdhahaas kalena ku sii qaadan waaya mootada weli oo taagan tahay okay waa sii socona inta maxaa ka dhacaya waa marka meeshaas gabadha aad socoto maamo weyna oo meesha kulley shay inay ku gadanaysa ayaan filayaa ninkani waa nin raga waa iska dhicinaya nimanka wax mobile ay ka qaadanayna ma lahan uu iska dhicinaya laakiin gabadhaas maamadaas waxa ku dhici doona mudan gudoomiye maxkamadda ay la fiiriso waa kana marka mudan gudoomiye ninkani mootada sida uga boodaya samada ka soo booday waa kana qoryo wata dhakab fiir maamadii mudan gudoomiye ninkan mobile muusa dhiibin wallahi inaan ku siinin billahi inaan ku siinin uu yiri waxaan rabaa marka eedda ah inay xabsiga ka soo fakadeen xabsiga saldhigga booliiska degmada hodan inay ka soo fakadeen inaan caddeeyo ayadoo muuqaalan maxkamadda aan u soo bandhigo meeshaan waa xabsigii shabaqaasaa xoog in lagu soo baxo halkan lagu soo baxaya mudan gudoomiye waa kuwana waa soo jabsadeen waa kuwana saldhigga dhexdiisa xabsiga waay waxa dhacaya mudan gudoomiye rasaas waa lagu ridooy qaaraa soo laabtay marka waa kuwana rasaasta markay maqleen qaaraa soo laabtay qaarna waa la soo qabtay rasaasta marka koraa loogu ridaa inaan wax la dilin ma la rabaya waa kuwaas koraa loogu ridaa wax istaagaya ma laha hore u carruran dheg ma laha marka qaaraa marka hadda la isku duubay oo la qabtay qaarna xabadii markay maqleen gadaale u carareen labadaa nin dhega ma laha ilaa nimanka soo dhacay waayo hore usii cararayaan le kaamirada kale oo bannaanka aada marka waxaan xabsiga ka soo baxaya gacan ku dhigliyaalaha ku jiro dad dad dilinaya ku jiro xabada hoosta waa loogu wada dhigi karay mudan gudoomiye laakiin booliiska sidiisaba waa ilaaliyaha nafta iyo maalka waa badbaadiyaha dadka inuu dilo lama rabin inuu soo qabtaan waa inay soo qabanayaan wax gaaray ma laha mudan gudoomiye labada eedeysanaba waa kuwana afgoy iyo laga soo qabtay waa beri kulligood hal loo soo qabtay marka baxsi ma sameeyeen oo xabsi ma soo jabsadeen haa waa sameeyeen waa kuwana mudan gudoomiye ayagoo xabsiga ka baxsanayo eedeysane Zubayr iyo Liibaan dhamme maxamed yuusuf jimcaale baaraha guud ee booliiska gobolka Banaadir oo ku dheeraaday sharaxaadda kiiskan ayaa maxkamadda la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristiisa mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa dhac baahsan oo iyo qalqalgelin amni loogu sameeyay caasimadda magaalada Muqdisho dhacaas iyo qalqalgelintaas oo ay geysteen eedeysanaasha kala ah Liibaan Mustafa Aadan iyo Zubayr Xaaji Maxamed Xuseen sidoo kale mudan gudoomiye garsoore taas si lamid ah mudan gudoomiye intaan baaristeena wadnay waxaan ku ogaanay in falka dhaca ah qoriga lagu geysanayay eedeysanaasha ay ku geysanayeen eedeysanaha saddexaad uu leeyahay uuna ku kireystay lacag $25 ah si uu faa'iido uga helo qorigiisa maxaabiis gaaraysa 68 maxbuus oo ka fakatay saldhigga Hodanaa jirtay oo aan baarnay kuwan waxa ka galay dadkii baxsaday kamid ahaayeen waxaan ogaanay oo aan baaristeena ku hubinay oo ku ogaanay eedeysana Liibaan inuu ahaa madaxa abaabulka baxsashada oo asaga uu soo abaabulay oo asaga keenay fikradii uu lahaa walow lagu guuleystay in kuwan dib gacanta loogu soo dhigo oo waqti dheerna la geliyo sidoo kale mudan gudoomiye garsoore intaan baaristeena ku guda jirnay oo aan kiiskan si qoto dheer aan ugu hubinay oo aan baarnay waxa noo soo baxday faldambiyeedkii dhacay eedeysanaasha inay geysteen dhibanayaashaan dhac loogu geystay moobeeladooda iyo hantidooda ay ka maqan tahay ayna u dheer tahay qalqalgelin guud ee caasimadda ay ku sameeyeen amaasanta ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in saddexda eedeysane laga saaro diiwaanka ciidamada laguna xukumo bixinta taleefanadii ay dhaceen iyo sidoo kale qodobadii uu ku soo eedeeyay mudan gudoomiye eedeysanayaashani waxay faldambiyeedyo dhac ah ka geysteen 16 degmo oo ka mid ah gobolka Banaadir waxay qalqalgelin ku sameeyeen amnigii laamaha ammaanka ay sugayeen kala ilaalinayeen cadawga ummadda Soomaaliyeed ee ugus waxay dhac baahsan u geysteen dad shacab ah oo magaalada Muqdisho xaq ay ugu leeyihiin inay si nabad ah ugu noolaadaan si nabadan ay ugu xarakoodaan xoolahooda mudan gudoomiye waxaan maxkamadda hor keenay dhibanayaal qaar ka mid ah dhibanayaashii dhaca loo geystay kuwaasoo ahaa arday waxbarasho jaamacadeed ilaa dugsiga ku jiray qaarkood maxkamaddu waxay ka hor cadeeyeen in ayagoo exam biri subax leh isla caawa ayagoo examka diyaarinaya moobeeladooda laga dhacay
imtixaankii ay lahaayeen berito wixii ay ku diyaarinayeen maadadii ay iska xifdin lahaayeen eedeysanayaashani waxaa uga daran xoogaa yaroo doolar ah oo ay moobeelka celis ahaan ay u gadaan ayaa uga fiican mudane gudoomiye waxaan maxkamadda hor keennay dhibano ka mida oo sheegay moobeelkan awalba $20 ku iibsan lahay $20 aan kuu tuuray iga ilaa moobeelkayga waxa ugu jiro moobeelkaas ayaa ugu muhiimsan dhibanayaasha laakiin eedeysanayaashani wax naxariisa oo ay u fidiyeen ma lahan dhibanayaashaasi amnigoodii qalqalgeliyeen moobeeladoodii ka dhaceen hantidoodii ka dhaceen mudane gudoomiye intaasoo dhan waxay u sameynayaan in ay faa'iido yar ka helaan moobeelo ay celis aan uga gadanayaan $20 iyo $15 ay celis aan uga gadanayaan ayay ka faa'iidaan mudane gudoomiye sidoo kale eedeysanayaashan mudane gudoomiye waxaa ku soo eedeynay in ay xabsi ka baxsadeen waa sax ayagoo hogaaminayo weliba eedeysana Zubayr uu yahay ninka koowaad ee ka soo baxaayo xabsiga saldhiga degmada Hodan ayaan maxkamadda hor keenay mudane gudoomiye wax alla wixii meeshaasi ka baxsan saldhigaas ka baxdeen oo 68 maxbuus ah asaga hor kacay asaga laga aqoonsaday Zubayr taas waxay cadeynaysaa in abaabulkeeda asaga uu lahaa shakhsiga hor kacay inuu yahay kaale hal ugu soo wada daydan uu yiri oo dhamaantood saas ay ku soo wada baxeen wixii meeshaas ka dhaco mas'uuliyad dara ama dil hadoo ka dhici lahaa asaga mas'uuliyadeed qaadi lahaa mudane gudoomiye eedeysanaha saddexaad asagana wuxuu doorka uu ku leeyahay kiiskani waa in hubkii faldambiyeedka lagu geystay uu asaga keenay in eedeysanayaasha koowaad iyo labaad asaga uu shaqada u dirsaday liibaan hadda wuxuu maxkamadda horteeda ka cadeeyay in shaqadan ii soo qaba liir qorni loo dhiibay uu soo qabtay shaqadii wax alla wixii uu soo shaqeeyo moobeelo uu soo dhacayna uu farta ka saaray xasan isagana ay ka soo gaartay xasan ninkale liibaan $90 bas ay ka soo gaartay ka hor cadeeyay marka maxaa meeshaas ka cad burcadda madaxdeeda inuu yahay xasan burcadan saddexda ah ee shabakada ah inuu xasan hogaaminayo meeshaas ka cad hubkii wax lagu dhacayna asaga uu lahaa mudane gudoomiye mudane garsoor maxkamadda sharafta leh bacdama kiiskani uu u cad yahay si waadax ah bacdama eedeysanayaasha ay qiraal ka yihiin in faldambiyeedan dhaca burcadnimada ah baxsashada xabsiga ay geysteen bacdama maxkamadda aan hor keenay dad markhaatiyaal ah dhibanayaashii faldambiyeedkan dhaca loo geystay ardaydii ayagoo wax baranayaan moobeeladii ay wax ka baranayeen laga dhacay qalqalgelin amni mudane gudoomiye 48 saacadood waxay jam geliyeen nambarkii 991 ee booliisku uu ku shaqeynayay mar waxaa laga soo wacaa degmada Hodan yaaqshiila laga soo wacaa wardhiigle laga soo wacaa waxaa laga soo wacaa wadajira laga soo wacaa dharkiina laga soo wacaa intaas oo dhan maxaa ka soo wacay dad dhibanayaal oo moobeel laga dhacay moobeel laga dhacay moobeel laga dhacay hal mar waxay wada mashquuleen 48 saacadood booliiska shaqo u direen yaa shaqo u diraayo waa niman ayaga laftirkooda amniga inay ilaaliyaan loogu talagalay mudane gudoomiye bacdama marka aan maxkamadda hor keenay dhammaan muuqaaladii ay duubtay kaamirada CCTV ee eedeysanayaashaanu dhac geysanaya laga dhex arkaayo ayagoo qalqal gelinaya amniga laga dhex arkaayo bacdama ay suurad xameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaa marka koowaad in saddexda eedeysana laga ruqseeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana laga saaro fursada ciidanka lambar 2 waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in saddexda eedeysana lagu xukumo dhammaan hantidii moobeeladii ay ka dhaceen dhibanayaashaas lambar 3 waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa bacdama eedeysanayaashani ay geysteen faldambiyeed burcadnimo dhac ah bahalnimo ah qalqalgelin amni sumcad xumeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay maxkamadda ku xukunto ciqaabaha ugu adag ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta leh waa maasantahay qareennada eedeysanayaasha maqsuud xalane iyo salaad oo ku dooday in caddeemo sax ah aan loo keenin eedda loo haysto muwakkiliintooda ayaa u codsaday in la siiyo xorriyaddooda السلام عليكم مدن قدومي قرصوري المقعي وأوكات مقصود محمد حسن وحا قرين وهاي ليبان مصطفى آدن مدن قدومي محكمة شرفت الموكل كي وحا لوسو إيدي قضبك الدوان سيدا قضبك أفر بقص ديتني أفر أو أهدع سيدا وكال سدح بقل إيشان أو أفل حبس كفكشاء سيدا وكال قضبك سدح بقل واتني لح أو عبس قلين ددويني هدي أكهر مر قضبك سدح بقل إيشان أو حبس كفكشو سؤال سويدين تلا ayaa waxa tamudun gudoomiye maxkamadda sharafta leh mar baari wuxuu leeyahay in uu abaabulkeeda ama dadkii inay baxsadaan waxa sabab liibaan sidoo kale mar xir ilaaliya wuxuu sheegay inuu Zubayr sababay haddana su'aal sooydiin tala ayaa waxa tamudun gudoomiye maxkamadda sharafta leh maxaabiis safakadeen oo 68 maxaabiis kuwaas oo ku dhawaad muddo
dheer ee ku xirnaayeen xabsiga suurtagal ma u tahay in liibaan oo hadda dhow lagu soo xiray xabsiga weliba bisha koowaad 19keeda in uu sabo inay maxaabiis ka fakadaan xabsiga oo gaara tiradooda 68 maxaabiis jawaabtu waa ma sababtoo aqoon oo u leeyahay ma jirin intaas oo maxaabiis iyo karti oo ku hogaami karna ma aysan jirin sidoo kale ma aysan jirin khibrad oo meeshaas uu ku joogo oo sidoo kale uu ku degi karo qorshe oo meeshaas ay uga baxaan maxaabiista qodob ku xiga ee xafiisku wuxuu ku soo eedeeyay wakiilkayga wuxuu waa 484 mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh qodobka 484 waa dhac wakiilkayga waxaa lagu soo eedeeyay in uu geystay dhac weliba uu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed haddaba wakiilkayga eeda lagu soo eedeeyay wuxuu qiraar ka yahay mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh in uu geystay dhaca qayb kamid ah taasoo micnaheedu uu tahay wakiilkayga asal ahaan qaabka uu geystay haddii aan wax yar isdul taag mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh wakiilkayga sidoo maxkamadda horteeda ka sheegay wuxuu ahaa nin ciidan ah kana tirsan ciidamada laakiin 2025 bishii 8aad ayuu ka soo wareegtay guutadiisa ama qaybtuu ka tirsanaa dhaawac soo gaara awgiis sidoo kalena wuxuu u soo wareegtay ehelkiisa si uu waalidkiisa u caawiyo maadaama hooyadiisa ay xanuunsaneed hooyadiisana ay lahayd sandaqad oo dukaankeeda agteeda ku yaal sidoo kale mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh waajibkiisa wuxuu ahaa nin ehelkiisa maadaama uu yahay qofka u weyn sidoo kale aysan jirin aabo taakule maadaama aabiisa dhinta Allah u naxariistay waxa uu ahaa hooyadiisa qofka kaliya ee garabka haysata oo taakule jiray sidoo kale u shaqeey jiray asiga hooyadiisa u shaqeynaa mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh ayaa waxay dhacday in deemeenkii lagu lahay maamada iyo sidoo kale ijaarkii iyo korontadii inay isku kor saarmeen taasoo ku kaliftay ama eedeysana soo dul saartay culeys tara badan waxa uu ku fikiray in uu deen raadsado asigoo deentan u doonto rag saaxiibadiisa ah uu weydiistay $100 oo deen ah mudan gudoomiye garsooriyaal kadib markuu deenta weydiistay ayaa asxaabtiisa waxay ku sheegeen sidoo maxkamadda asiga naftirkiisa horteeda ka sheegay in uu qoriga qaato weliba dhac u geysto haddii kalena ay ka tagaano 2 maalin kadib markii arrimaha uu soo laabtay ee halkan uu waayay wakiilkayga baahihiisa awgiisa iyo duruufaha ku xeeleysan awgeed ayuu wuxuu ku qasbanaaday inuu raaco wadadaas khaldan wakiilkaygana maadaama uusan ahayn nin u soo baxay inuu qof dhibaateeyo laakiin ujeedkiisa ay ahayd in uu helo oo kaliya hanti maadaama qofka hantida isku dhajiye waa uu ka tagay asigoo aan rabin inuu dhibaato geysto laakiin hadduu ahaa qof caadeysta hadduu ahaa qof u soo baxay inuu dad dhibaateeyo ma uusan ka yeeleen inuu ninka mobilka isku dhajiye ee xoog ay uga qaadan la mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh sidoo kale wakiilkayga wuxuu maxkamadda horteeda ka sheegay dhammaan mobiladu soo aruuriyay dhammaan mobilada lagu sheegay inuu soo dhacay inuu dhammaantoodaba farta ka saaray ninkii koowaad ee qoriga u dhiibay oo deenta u doontay oona ku dhahay soo qaado mobiladii markuu mobilada ninkaa u geeyay ninkaas ayaa qaaday sidoo maxkamadda horteeda wakiilkayga ka sheegay kadib mobiladii markii la gaday qarashkii oo wakiilkayga ee raban ee ahayd $100 waxaa laga siiyay $96 sidoo asiga sheegay taasoo tusinaysa mudan gudoomiye maxkamadda sharafta asalka wakiilkayga in uu doonayo oo kaliya lacaga oo ijaarka hooyadiisa uga bixi lahay gurigaas si oona hooyadiisa culeysyada heesa uga fufujiyo laakiin wakiilkayga ma aqoonin meel mobil lagu gado ma aqoonin inaa mobil laga ganacsado ma aqoonin oo kaliya wuxuu ahaa nin qarash doon ah ama lacag raadis ah qofkii u tilmaamay mobilka iyo kaan ahayn ayuu mobilkiina u geeyay lacagtiin asiga ka soo qaatay sidaas awgeed mudan gudoomiye maxkamadda sharafta qodobka 408 waxa uu leeyahay tiirar uu ku taagay ee kamid tahay qofka waa in uu helaa ama waa in uu raadiyaa faa'iido sharci daro ah si uu nafsadiisa uga faa'iideeyo ama cid kale uga faa'iideeyo haddaba su'aashiis weydiinta waxay tahay dhammaan faa'iidada sharci darada oo mobilada la soo wada aruuriyay wakiilkayga ma ka faa'iideysto jawaabtu waa maya wakiilkayga mudan gudoomiye wuxuu qiraar ka yahay oo kaliya inuu mobilkiisa lagu soo tuuray lacag gaaraysa cadadkeeda $96 sidoo kalena lacagtu asigan raadinayo oo rabo inuu ijaarka iska dhiibo oo waalidkiisa uga bixin ay ahayd $100 sidaas awgeed mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh difaaciga ku saleysan ama qodobka 484 halkaas ayaa u gudbeena sidoo kale mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh qodobka qalqalgelin amni uu sheegay ama lagu soo eedeeyay wakiilkayga waxaa la sheegay inuu sameeyay qalqalgelin amni haddaba sidoo qalqalgelin amni u sameeyay mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh wakiilkayga oo kaliya wuxuu ahaa qof huweysan qof kasta oo huweysan micnaheedu waxa inuu qalqalgelin amni sameeyo jawaabtu waa may sababtoo oo kaliya waa tagay mobilada keenoo dhan waa soo qaatay waana ka tagay laakiin ma jirno qof oo xabad kor ugu riday sidoo kale ma aysan jirin qof oo qorigiisa ku garaacay sidoo kale ma aysan jirin qof oo qorigiisa ku dhibaatay oo kaliya waa kor istaagay dadkuna insaanka asiga cabsi u sameeysan maadaama aalad laga baqada ee u sameysanta qoriga cabsiga ee qoriga ka qabay awgood ay mobilada ku dhiibday saas darteed ma jirto wakiilkayga meel lagu cadeeyay inuu qalqalgelin amni u sameeyay sidoo kale meel lagu soo bandhigana ma jirto sidoo kale mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh wakiilkayga ma ahan caadeysta fal noocan oo kale hor u
u geystay waxaa taas cadeen kugu filan mudan gudoomiye maxkamadda sharafta leh ma jiro qof fal dhac ah geysanayo weliba caadaysta inuu saaka soo kaco ilaa caawa fal dhac ah geysanayo asiga oo nasanin waa dareemi kartaa qofka markii ay saaran tahay culays nololeed ama duruufo nololeed qofka markay saaran tahay ma hirsan karo ama ma hooyo karo sababtoo ah ilaa duruufihii nololeed oo saaran awgeed wakilkeyga waxa uu maalintaas dhan u socday wax kalena ma aysan ahaynin $100 oo hooyadiis ijaarka laga rabay korontada biyaha inuu raadiyo ayay ahayd sidaas awgeed maxkamadda waxaa ku codsan lahaa si waafaqsan qodobka 4aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama wakilkeyga aysan jirin siiro hore ama hore wax loo soo xiray sidoo kale maadaama wakilkeyga aysan jirin dhibaato oo hore u geystay sidoo kale maadaama wakilkeyga oo asiga naftirkiisa uu qiraarka yahay falka uu geystay iyo ujeedada uu geystay iyo asbaabta ku kulifto oo maxkamadda u sheegay maxkamadda waxaa ku codsanayna inay u fiiriso qodobka 4aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasoo ah taqfiiful cuquuq ama ciqaabta inay ka qafiifiso sidoo kale wakilkeyga ee maxkamadda dib xuridiisa ay u siiso si uu waalidkiisa u caawiyo waalidkiisa oo xanuunsan oo garab ugu noqdo maxkamaddana waa maasan tahay Zubayr Xaaji Maxamed meeshaan wuxuu soo bandhigtay xafiiska xad ilaalinta uu isticmaalay film oo video ah uu leeyahay cadeen waay oon muujinaynin xataa wejiga qofka uu yahay mooto inay socoto waa arkayna mootaa la sheegay okay qof inuu ka soo degaayo boodaayo waa arkayna okay yaa waay qofkaas iyo mootadaas wejigii hebel ma laga aqoonsan karaa lagama aqoonsan karo ma soo bandhigin haddaysan jirin meeshaas waxaa ka baxaayo caddaynta oo u isticmaalayo clip fog taas marka laga soo gudbo mudane gudoomiye waxa uu sheegay in kireysto oo ahaay mooto oo dadka kireysto ku shaqaynayay isla markaasna laga kireystay waana uu sheegay in boondheere dhac laga geystay iyo hodan qadar lacageedoo lagula heshiiyaa jirtay maxkamadda inay qortaan u malaynaa oo loo tuuray $50 oo lacag ah Zubayr xaqiisa wax jira waxa ka jira $50 oo kire ah kireystanimo looga qaatay meeshaas marka laga soo gudbo mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa la soo sheegay meeshan oo la yiri 305 xabsiyo ka fakaday gudoomiye albaabka ganjeelka markuu xiran yahay meel yar uu leeyahay maxbuuska laga fiiriyo lagala hadlo waa tagaan aniga saldhiga furo in banaanka looga furo maahane lagama bixi karo therefore waxay ku tusaysaa mas'uuliyadda dambiga inuu leeyahay furahayihii dadkan albaabka laga furay ganjeelka loo qaad dareeraa Allah maxay sugayaan waa dareerayaan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh dadka dhibanayaasha ah ee ku sheeganayo taleefanada hal qof ka mid ah ma dhihin Zubayr qoray ugu qabtay mobile iga qaaday ma dhihin waxay ku ekaaneen marka meeshaas kireystinimadiisii mootaday ku ekaaneen oo ah in kireysto oo ahay sida asaga uu sheegtay marka taasna fal dambi kuma yeelan karo waxay ahayd xataa haddii dhici karto in qodob la saari karo la dhaho gacan uu ku siiyey 298 inuu aado ma aadin wuxuu aaday 484 oo fal uusan shaqo ku lahayn dusha loo saariyay waa bakayle la yiri fooste biyo ahaan saareenaa meeshaas marka la joogo mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan u gudbaa codsigayga gabagabada mar haddaan maxkamadda la horkeenin qof dhahaayo Zubayr ayaa iga maqan taleefan noocaas ama Samsung ama iPhone ama noocii la rabo ha ahaadee aan la keenin qof dhahaayo Zubayr iga qaatay mar haddaan la keenin markhaati ka baxsan cidda wax sheeganayso ee cidda wax lagu sheeganayo mar haddaan la keenin cid arkaysay oo shaahid ahayd oo goobjoog ahaa aan la haynin oo la keenin mar haddii ay caddayn in mas'uuliyad xabsi ka fakasho uu u leeyahay isaga awood aysan caddayn waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in Zubayr Xaaji Maxamed xoriyadiisii maxkamadda ay dib u siiso si waafaqsan qodobka 115 oo caddaynayo caddayn la'aan awgeed faldambiyeed kuma yeelan karo Zubayr maxkamaddu waa mahadsantahay waxaan abukaate u ahay eedeysanaha saddexaad ee la yiraahdo Xasan Yacquub loo yaqaan Yariisow xafiiska xeer raaliyaha guud wuxuu ku soo eedeeyay 2 eed oo ah in
qorigiisa lagu geystay dhac oo ah 484 armed robbery in dhac lagu geystay qoray oo asaga leeyahay 2 iyo in qorigiisa loo adeegsaday oo kireystay oo la siiyey $20 lacag gaareedo marka waxaan rabaa labadaas ayaan rabaa inaan ka difaaco maxkamaddaana u soo koobayo waxaan ku difaacayaa wax loo yaqaano afka qalaad factual defense oo ah difaac ku dhisan xaqiiqo mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh wuxuu ku jawaabay eedeysanaha aan qareenka u ahay dembiga markii loo aqriyey eedda wuxuu ku jawaabay ma gelin oo waxaan ka maqnaay goobta dembiga waa ka maqnaay marka waxaan rabaa inaan ka difaaco oo aan dood yar ka sameeyo eedeysanaha aan qareenka u ahay gudoomiye xilligaas dadka kala duwan ee dhibanayaasha maanta inta joogo dhaca loo geysanayey wuxuu ahay active duty ahay wuxuu ahay sarkaal howlgal ku jiro ahay sidoo maxkamadda u caddeeyey mas'alada aan rabo marka inaan ka difaaca waxay tahay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh qoraygan wax lagu geystay ee xafiiska xeer ilaaliyaha caddeyn ahaanta u keenay ma yahay caddeyn si sharci ah ay maxkamad u aqbali karto qoraygan haddii uu yahay kii habeenkii wax lagu geystay waxaa ka dhiman in la soo raacsiiyo qoraygan in uu ahay qoray aanan lagu shaqaynaynin ama qoray lagu shaqaynayey haddii uu ahay qoray aan lagu shaqaynayn waxay ahayd taliyaha laga keenay qoraygaas fasaxay in uu soo raacsiiyo warqad tilmaameedo in qoraygan uuna ahayn qoray waqtiyadii dhaca la geysanaya aan lagu howlgelaynin meeshaas waxaan uga baxayaa mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh in qoraygan marnaba uu ka mid noqon karin dhacdadii habeenkaas waxaan kaloo rabaa lacagta $20 muhiim waaye ayadana waa qayb ka mid a cadeymaha loo haysto ama lagu dhisaayo eedda loo haysto eedeysanaha aan qareenku ahay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh markii dad caadiya oo muwaadiniin ah laga dhaco hantidooda sida moobeelo sida caadiga ah moobeeladaas waxaa jiro meelo laga iibiyaa jiro sida meelaha ku dhacda iyo waxyaabaha discountiga lagu gado waxay ahayd xafiiska xeer ilaaliyaha asagoo maxkamadda u keenayo in $20 loo soo tuuray ninkii la yidhaahdo xasan waxay ahayd in uu sameeyo money transactionska inuu baaro oo ka helo mid ka mid ah dadyooga iibsado taleefanada celiska ah haddii ay lacagtaas marka ay noqon lahayd in ay ku timid moobeelo la iibiyey waxaa suurtagal noqon lahayd marka in uu yahay xasan qofka laga kiraystay qorayga laakiin eeddiisa mar kale waa qali sababtoo ah wuxuu sheegay oo keliya $20 lacag ah in ay u soo dhacday xasan lacagta $20 waxaa ka furan baarisaa ka furan mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh intaas waxaan ku soo goobayaa mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh labada qeybood ee isdifaaceenna 484 oo ah in lagu geystay hub uu leeyahay xasan dhac lagu geystay mudane gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh waxaa innaba baarista lagu caddeynin oo ay muhiim ahayd in baarista lagu soo daro waqtiga u dhaxeeyey dadkan la dhacay oo ahayd 18 bishii koowaad iyo waqtiga la soo xiray xasan waxay ahayd baaristaas in la keeno dukumiintiyadiisii oo habeenkaas ku howlgalayay sababtoo ah waxaan ognahay dadka ciidanka ah ee lagu qoro habeenkii duty-ga waxaa laga qoraa warqad la yiraahdo military log sheet oo ah taariikh hiblaayo inuu askari hebel oo ku qoraay duty ayadana taas maadaama ay ka maqan tahay waxay tusinaysaa in baaris kala dhiman ay jirto maxkamadda sharafta leh 119 waxaan u gudbayaa si waafaqsan 119 codsigii gabagabada maadaama eedeysana aan qareenka u ahay oo u faaleeyey maxkamadda in uu waqtigaas la soo xiraayey oo ku jiray shaqo maragna ay u ahaayeen taliyadiisa maaragtay ciidanka sida taliye horanka iyo taliye maaragtay ururka muhiimna ay ahayd in taliyaashaas maanta
la keeno meeshaan waxna laga weydiiyo waqtigaas halka uu ku sugnaay xasan maadaama xasan uu yahay maxbuus caddeynna uu heli karin maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa si waafaqsan 118 in ninkaas odaygaa 19 bishii koowaad inuu heegan ku jiray iyo in uu shaqo ku jirin ay maxkamadda feelashiisa ka raadido inta aan laga gaarin ka hor go'aan maxkamaddu way mahadsantahay mudan gudoomiye dadka waa ninka dhibka u geystay oo macnaha wax ka qaada ah sidii ay ugu tilmaamayaan Soomaa adiga deena leegu lahay ma dhihino haa deenta hal iyo laba leeb kugu filneeda maxaa saan dham ugu gacan marisay magaalada intaas dhan magaalada ma u gacan marin aniga mudan gudoomiye ma fahant lacag leegu lahay awdkeeda intaasna u sameeyay macnaha kiiska u galay maana iga maheen bareer cad inaa wax u dhaco ama wax u dhibaateeyo wadan ay geysay meesha laga baxsanayo ada abaabulaal baxsiga qaabka loo baxsay baxsiga ani ma abaabulin saldhigaas dad iga maskax sareeyay dad iga waaweyn horteedu ku jireen ani hadda u badato 45 biri camal ku jira 45 birin dad maskax ma ku saari garid dad iga waaweyn ma ka aqlab bidi kari yaa saar maskaxda marka dadka yaa saar ani maskax ay wax aasaro ilaahay awro ma jiro ani qolka geeska ku jiray ayadoo saacad maqrib hal saac bar meelaas meel 2 saac dadka ugu dambeeyo wili baxaya yani si ku faantiin la bixiyo yaa soo orday idin dhahay see wax ugu dhaceen meesha dada waxa dhahay macna idinka maxaa meesha u fadhiisin dadkii waa wada baxeenay kala baray maxaa idinka u fadhiisin anana dadka ina xabsi la jabsanay ina xabsiga la soo galay warka meen dad kala ordayaan aan dhaxda ka galay kiis soo wax u dhacay soo wax u bilowdeen waxa soo dhan ma ogeen intee laga soo xiray markii dambe xaawganaya laga soo xiray daynile muddo haweena la soo xiray afgooyal laga soo xiray ma qamal u dhaxaysay marka baxday markii la soo xiray 10 maalin 15 maalin amal u dhaxaysay maxkamaddu maxaa ka codsay liiba maxkamaddu waxaa ka codsaa wixii xukuna iyo wixii inay si sharaf leh ugu dhufato maxaa codsay inay wixii aanay dambiga khirsanay dambiga inay iga qaado moobeelada maxaa ka nool oo loo cili karaa dadkoodii moobeelada wax ka nool mudan garsoore male kullu waa dhinteen u dhiib saaxiibka Zubayr u dhiib horta naanastaada maxay ahayd degdeg mootada laakiin adiga nin la qasbay ma tiid inta istaajinay waa sii waday waa soo waday mootada adiga iyo liba adaab heegan ah aniga meen mudan Allah ku heshiinay degmooyinka oo ay geenay oo dhaayay wax wax dhacayna usa miishayna degmada meel laga taga ma laho maxaa jidka le mal wareega oo dadka mal dhiba hal maaha laba maaha saddex maaha marka ishaag wasabiyan aan soo bixin markaas aniga meesha aan soo qaaday oo dhaay saddex meel ay geenaysaa alaaba soo qaadana ay soo celinay laakiin la habeenkii socotay habeenkii ma soconi guriyana kaamira ku xiran waa fiiri kartaa kaamiraadka mid kamid habeen may ana ma aan fiido was qofka loo meen habeen mooto ma wada bamada arinta baxsashada adaa hor orday dadka may marka saldhiga laga cararay qofka hor orday adiga waa ana maan yaa waa ana meel orday arki waa ordanay meeshii la orday orday yaa jibi meeshii meel la jibi maambo see lagu bax marka dada ordeen anna waa isku daray intee laga soo xiray degmadii waa biri laga soo xiray maxkamaddu maxaa ka codsanay xurdeenaysis in xurdaad ku siisay maadaama darawal ah xasan u dhiib xasan adiga labada qof baa ku sheegaysaa in kan qoriga ka soo qaaday intaan magaalada gelin dhahoya labada dulmi ay igu sheegayeen waxaan qori dad aan u dhiibi male wax lacag aan dad u tuuray ee wax aan kala gaday male wax walba hadii lacag aan kala gaday shirkada taal simikaariday waa la yaqaana hala wareysto ninkan guriga la sheego anuu ila degana islaamnimo ila degana asii hooyadiisba ana ila noolaayeen yaa waa kaas liibaanka ninkan kale maba aqaanaba ani dukaan ani aan leesan daqad cunug ii gadaayo wuxuu dhaay ani shaqadii saacaw jaanis maaye firintijeeran soo gaday u dhiibay dukaanka cunugii waa buri asaan ku ogaa dukaankii oo rartay meesha hadii la sheego bay dhawyray ma aqaan oo la tagay isku qabsanay $865 ka rabay dukaankii igu jirto hooyadiis anaa ku kaskaseenay dhahay adaa dhibano u ahban kan anaa dhibano waxaan ka qabaa $475 ka qabaa waxa igu dhiman $390 cadeenaan u heystaa anoo xoolay maqan xarag la igu sii dar ee nab marka deyntii oo sheegay ama adile kula hadu raadinaya ma aqaan hadda waa yaabanaab anoo xirada joog $20 tali horinkii itali unug itali koox waa la weydii karaa meel wada fadhin sheex anaa kiri sheexa wada cabeene roond $20 iyo soo dhacday suuxi tali horinkii mobilka actis charger ugu jiro oo lacag ku soo dhacday maanta adaan ku qoran say qornaan 20 kan leeyahay hay nabad waxaan uga soo wada qaaday 20 kii meel loo tuuray bish markay soo dhacday lagu dhimeestiraa dhamir dif jaad oo soo qaaday waa wada fadhin roonda aadib aan orod basr habeenkii markii la soo wacay Cabdinaasir Damiinto oo soo wacay waxaan dhawarnay aan shaqo ku jira waxaan ku hor telefoon waa dhigeysana ilaa hooyada 50 qof ay soo wacday ilaa xaafadii dhan subaxii markay
cabdinaasir hee maxaa dhacan dhayna wasaan iigu soo wacaysa ani shaqan ku jiray haye tali qofka qadka ugu jiray qofkoo yahay ma aqaan haye tali oo dhahay ma maqlo sida ninka shaqo jiraa seen ku ogaa karaa hadda talihoorinka wacaan dhahay dhegey talihoorinka ma taqaanido haa waa adbiil weyn waa joogi jirtay ama hadda aan kuga xiriiriyo dhageygii oo laadlay haye subaxii iskeena keeno idhahay nina kuna way haye subaxii qorigiyaan soo dhigay waa soo aaday adi dadka dhan waxay ku caamay qoriga hore u kiri jirtay qoriga kiriisamay qorig baaskiil miya $20 qofka nafsadiis ku kireynaa ma jira wiiligay ahlay qoriga garabkay iyo restoorka dawladda ma dhaafin maxkamadda maxaa ka codsanay maxkamadda inay xorriyadii isiis iyo fariis xasan gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho